magaalada Shineele waxaa ka socda saaka ololo ballaaran oo loogu diyaar galoobayo munaasabadda sanad guurada Gimbo oo laga xuso wadanka Itoobiya. Haddaba warkaas waxaa nooga soo diray isagoo faahfaahsan wariyaheena Cabdi Xasan oo ku sugan magaalada Shineele asagoo wariyuhu sheegay kana soo ururiyay ra'yi badan oo dadweynaha. waa kan wariyaheen dhageysan ololo ballaaran oo lagu soo dhaweynayo xuska 20ka Gimbood ayaa waxaa si heer sare uga qabsoomay magaalada Shineele. ololaha nadaafadda oo ay qayb ka tahay soo dhaweynta xuska 20ka Gimbood ayaa waxaa si diiran uga qayb qaatay dhammaan bulshada ku dhaqan magaalada Shineele. ololaha nadaafadda lagu soo dhaweynayo xuska 20ka Gimbood ayaa waxaa halku dhig looga dhigay aan kor u qaadno bilicda iyo nadaafadda magaalada Shineele isla markaasina si diiran ugu soo dhaweynayo xuska 20ka Gimbood. ololaha nadaafadda ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan mas'uuliyiinta degmada iyo waliba maamulka magaalada Shineele. duqa magaalada Shineele mudane Ibraahim Muhammad ayaa tilmaamay in ololaha nadaafaddu qayb ka yahay soo dhaweynta xuska 20ka Gimbood isla markaasina tilmaamay in bulshadu ay ku soo dhaweynayaan xuska 20ka Gimbood shaqooyin horumarineed oo kor loogu qaadayo bilicda iyo nadaafadda magaalada Shineele. ballaaran oo loogu gobol xaadhayay munaasabadda xuska 20ka Gimbood taasoo dhammaan ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan hooyooyinka dhalinyarada culimaadoodinka iyo dhammaantoodba saadaradeed waxaan oranayaa waa maalin aad u farxad badan qayb weyn macnaha bulshada ay ka qaadatay bilicda iyo nadaafadda magaalada Shineele waana aragtaa bulshada sida ay isugu soo baxday ee ugu yeelan tahay inay nadaafadda magaalada kor u qaado iyo bilicdeedaba kana howlgasho kana hortagto mataqaanaa qashinka qalalan ee magaalada ka buuxa ololahan lagu xusayo loogu gobol xaalayo xuska 20ka munaasabada gudimo. sidoo kale mas'uuliyiinta degmada Shineele oo ka qayb qaadanaya ololaha nadaafadda ayaa sheegay in ololahan ballaaran uu qayb ka yahay soo dhaweynta 20ka Gimbood isla markaasina bulshadu ay si firfircoon uga qayb qaadanayaan in ay kor u qaadaan bilicda iyo nadaafadda magaalada taasoo qayb ka ah dadaalada horumarineed ee magaalada Shineele lagu horumarinayo isla markaasina shacabku ay si diiran ugu soo dhaweynayaan xuska 20ka Gimbood oo ah maalintii la xaqiijiyay xuquuqdooda. waxaan u soo baxnay shacabweynaha ku dhaqan degmada Shineele ololaha nadaafadda walow ay ku jirtay soo dhaweynta Gimbood iyadoo sidaa ahayd maanta dhammaan shacabka ku dhaqan degmada Shineele saadarkiisa saaka waxa u soo baxeen ololaha nadaafadda iyo soo dhaweynta Gimbood. taa waxa dheeray xafiiska beeruuna wuxuu ka caawiyay qalabkii lagu shaqeynayay dhammaan shacabka ku dhaqan Shineele wuxuu soo dhaweynayay Gimbood abaabulka nadaafaduna sida loo ogyahay cudurka waxa naqaanaa in lagu hortago marka taasi waxay gogol xaaleysaa 16 package ila cadeyn soo dhammaan shaqaalaha caafimaadka iyo dhamaantoodba waxay ka shaqeynayeen soo dhaweynta Gimbood iyo nadaafadda waxa Gimbood soo dhaweynteedina hadii Ilaahay raaca si adag baan soo dhaweynaynaa gogol xaalkeedii baan ku jirnaa nadaafadda ololaha maanta waan ka shaqeynaynaa annagoo dhan kaabineygeeygi dhamaantood maanta annagoo gacmo haysaysano waan ka shaqeynaynaa. iyadoo maanta tahay maalin axad ah ayaa waxa shacabka ku nool magaalada Shineele dhammaan waxay u soo baxeen nadaafad waxa weyn inay nadaafad lagu sameeyo magaalada taas oo lagu soo dhaweynayo 20ka Gimbood. nadaafadaas oo ay ka soo qayb galeen dhammaan waxa weyn shacabka qaybihiisa kala duwan sida dhalinyarta hooyooyinka odayaasha culimaadoodinka kaabineedka degmada iyo shaqaalaha dawladda taasoo aan ugu talagalay inaan ku soo dhaweyno munaasabadda waxa weyn 20ka Gimbood oo ahayd maalintii waxa weyn xorriyadda la helay isla markaana ay u suurta gashay shacabkan inay waxa weyn ay xornimo buuxda qaataan oo ay ku luqadooda wax ku bartaan oo waxa weyn ay iyagu ismaamulaan taas ayaa waxa weyn saaka la isugu soo baxay waxayna u qabsoontay si fiican iyadoo aan loo kala hadhin isla markaana waxa weyn lagu muujiyay si muwaadinimo ah. qaar ka mid ah bulshadan ka soo qayb gashay ayaa inoo sheegay dareenkooda ku aadan inay aad ugu faraxsan yihiin ololaha nadaafadda ay ku sameeyeen maanta magaalada Shineele isla markaasina ay qayb ka tahay soo dhaweynta 20ka Gimbood. maanta waxaan qaadnay ololo nadaafadeed oo aan ugu talagalay maalinta Gimbood hayaa quruxdeeda inaan si nadiifino dhulka markaa saaka 6 sidaan u bilownay ilaa imika ayaan wadnaa ololaha nadaafadda waa ku annaku aan sabaabulay oo shacabkayaga iyo annaku aan ugu talagalay inaan nadiifino wadankayaga iyo horumarka nabadgelyada maamulka suuban inta baan ku xoojino.
maanta waxaan u soo beerraqnay Gimbood haya ololaha nadaafadeed annagoo ka kooban 4 xaafadood oo qabaleega labaad ah waxaan ku soo deeqaynaa Gimbood haya gacmo furan oo ku soo dhaweynayno ololaha nadaafadeed maanta qaadnayna maalin walba inaan diyaar u ahaanayno oo ku soo dhaweynayno sharafta iyo mudnaanta ay Gimbood lahayd qodobka koobaad nabad baan ku helay Gimbood nabad baan ku waaray horumar baan ku helay ismaamul gaar aan ku helay gacmo isqabsi baan ku helay afkayagii hooyo oo luuqad geed hoostiisa ku dhiganayna ku helay jaamicadaana walawlaadayadu ay tagaynin bay maanta noo tagtay noo soo qalin jabisay waxaan helay gacan midig iyo gacan bidix oo ku wada wadaagno Soomaal baan ku wada baxnay magaca Soomaaliyeed meel kasta oo joogno oo isdhex galay barasho wacan baan ka qaadnay waxaan leenahay Gimbood ha waarto horumarku ha waaro hooyooyinku ha waaraan aabayowgu ha waaraan dhalinyartu ha waarto dawlad deegaanka Soomaalidu ha waarto Cabdi Maxamuud Cumar ha noolaado dawladdu ha waarto sidoo kale ururka dhalinyarada ee magaalada Shiniile oo kaashanaya xafiiska isboortiga ayaa soo agaasimay tartanno ciyaaraha iyo waliba kulana ay kaga tashanayaan sidii loo soo dhaweyn lahaa xuska 20ka Gimbood isla markaasina si diiran loogu xusi lahaa madaxa xafiiska dhalinta ee ciyaaraha ee degmada Shiniile mudane Axmed Cabdi Iimaan ayaa tilmaamay in xafiisku dadaal xoogan ugu jiro soo dhaweynta xuska 20ka Gimbood isla markaasina ay kaga qayb qaadanayaan tartan ciyaaraha kubadda cagta oo loo qabanayo 8 xaafadood ee magaalada Shiniile guud ahaan magaalada Shiniile waxa ka socda dhaqdhaqaaqyo xoogan oo lagu soo dhaweynayo xuska 20ka Gimbood isla markaasina shacabka ay ugu diyaar galoobayaan inay kaga qayb qaataan soo dhaweynta xuska 20ka Gimbood dhaqdhaqaaqyo horumarineed oo kor loogu qaadayo bilicda iyo nadaafadda magaalada Shiniile iyo waliba hawlo kale oo horumarineed